Oh, soo galo Warseel hayay. Hello, soo galo. Soo dhawaado. Celia waa yaaba war soo dhawaada oo ii sheer gareey bal iyaamahan soo ma gelinin seetiin soo dhawaada. Yep, aniga waa yaaba wallahi waa yaaba. Ya Somaliland waan ka yaabay. Somaliland waa la yaabay. Ya qofkii koonfur imaado waa la xiraa kuleeyeen waa la xiraa bisin yaa wax xariga magac ma qabo miyaa war ii sheer gareey xabadaan ka dhacay Brian isma ana arkinin ya Celia horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin waa idin salaamayaa khiyaarta dhalinyarada intii saaxiib ilaa intii col ilaa kulligiin waa idin salaanta islaamka idinku salaam soo dhawaada share please share xabadda important waaye waa xabad muhiim in laga hadlo waaye runtan la isku sheegay please ii share gareey intii tabartiina anigana I'll try inta invite gareynaya ya waxaa la yaabay oo haddana la yaabay ya saaxiib yaal 45 tihiin please share-ka igu qabta وانا اذن سلام كلين سيتين لبدان برلي ما اركين واسكا مشغول سنة يا تليفون كيغانا وحباسي كي ما فيعنو لكن ان شاء الله وكو غارينا او نوضايا وجوكو كعالو وضايا waxaa la yaabay Somaliland qof kasta haday xirto yaa soo haraay Faarax Murtiile waxa lagu xiraay garowa tagtay ya Faarax Murtiile soonin fanaan ima Soomaaliyo dhan muu fanaan u yahay mise Somaliland uu fanaan u yahay marka koowaad ma ahan in fanaaniinta iyo lagu daro ma aragtay macnaha waxyaalaha siyaasadda fanaan siyaasad inuu ka marnaado waa Faarax Murtiile waa ninka ugu kaftanka badan ugu furfuran ugu shaacirada badan Soomaalida hadduu tago garowana wuxuu tagay dal walaalihiisu ku nool yihiin oo Soomaaliyeed Somaliland inta qof ee garowa joogta ama Boosaaso joogta ama Gaalkacyo joogta ciidii caraday ka badan yihiin ya waana dad Soomaalinimada u imaadeen Faarax Murtiile marka maxaa lagu haystaa because you fanaan because waa lagu yaqaan Somaliland ka degtay waxaas camal ma shaqeyso waxaas wax shaqeynaayo ma may fahanteen mid kale dadku waa xor mid kale Faarax Murtiile asaga Somaliland ya dadka top 10 kuuba ku jiraaba asaaba xukumaba ama ka koreeya dadka dhahaaya waa lagu xirayaa hadaa imaad ya Faarax Murtiile waxaan jeclaan lahaa inaa iilihii lisaan waxaas camal waa ceeb Soomaalinimada meel uga dhacaysa bini'aadanimada meel uga dhacaysa waa nin fanaan waa nin umada u dhaxeeya macnaha fanaan maaha inuu qabyaalad ku saleysnaado fanaan umada dhan u dhaxeeya mi fahanteen ma ahan shakhsi gooni ah magaalo gooni ah dad gooni ah anigu waxaan ku baraarujin lahaa ama aan dhihi lahaa Faarax Murtiilo nin xoraa tahay nin Soomaaliya tahay ama Somaliland ama meel kale ka imow ama magaciisa waxa aaminsanaa wadankaaga inaad tagtay inaadan meel cadow tagin inaa meel Soomaaliyeed tagtay inay Soomaaliya afarteeda gees isku mid tahay meesha rabtidna aad ka mari kartid marka waxa siito ha u bixin
you are pure Somali nin Soomaaliya tahay fanaanaan jecelnahaa tahay nin waxaa tahay kaftan badan nin waxaa tahay gabay badan nin waxaa tahay kasoo dhex muuqda oo kasoo dhex cadcad fanaaniinta Soomaaliyeed nin la yaqaanaa tahay yaan lagu waabsanin waxaasoo kala waabsi Soomaalinimada meesha ay kaa tusto tag aniga taasaa kugu waanin lahaa isku hadal nahay isku luuqadaan nahay maxay ahaydeenay isku magacaan nahay isku afaan nahay yaa Soomaaliya weligeedii Soomaaliya ahaan jirtay meel la kala leeyahay ma jirto waxaan waa inta ma aragtay iska magaciisii waxaanayto mar dhow waa iska soo jarjarmayaan waa iska soo gaabanayaan marka godob ha isku gelin dadka walaalaha Soomaaliyeed waa ku siman yihiin yaa aniga kulay fanaana jeclahay oo aan ka helo mataqaanaa fankiisa ayaa tahay waana ku support gareynayaa macnaha mana isdhahayo Somaliland lagu xiraayaa iyo waxaan aaminsanahay dadkaas oo dhanba adiga inaad ka Somalilandsan tahay ama ma aragtay yaa aysan waxba ka qaadi karin marka yaa lagu bajinin Faaraxo waxaan ku dhihi lahaa yaa hawshaada wado meel alle meesha xora u tahay yaa mid kale fanaaniintu way u dhaxeeyaan in lagu daro ma ahan fanaaniinta dadka caadiga yaa in lagu daro ma ahan ninka fanaanka af Soomaaliya ku heesaya af Ingiriis kuma heesay af Carabi kuma heesay Soomaali buu ku gabyaya af Soomaali buu ku gabyaya Soomaalinimadiisa oo cadeynaysa mi fahanti luuqadu ku hadlaayo waa Soomaali luuqadu ku heesay waa Soomaali luuqadu ku gabyaya waa Soomaali luuqadu ku geeraarayo waa Soomaali ma English uu nagu hadlaa waa maya ma Carabi ku hadlaa waa maya ma Maxaari ku hadlaa waa maya maxaa u diiday marka Soomaali gees ku rabo inuu ka tago ma ii sheegi kartaan miyuusan haynin icon oo ummadoo dhan u dhaxeeya oo macnaha nin fanaan horta waa qasab inuu qabiil ka dhamaado yaa nin fanaan ummadda dhan u dhaxeeya maaha marka in qabiil lagu dabiro waa lagu xirayaa iyo waxa saytu wax fiican aqligayga aniga saas ila tahay wardadayo hadaan qaldanahay qabta haddaan khaldanahay qabta waxa tiraahdaa ninka waa saas Soomaali ma ahan dhaha hadduu af Soomaali ninka ku heesay hadduu af Soomaali ku gabyaayo hadduu af Soomaali kuugu shaacirayna waayahay Somaliland luuqad kale ma la soo baxda ilaa Faarax Murtiile Soomaali ku hadlaa yaa Faarax Murtiile hadda Soomaalinimo oo Somaliland oo yahay de anaga Soomaaliyaan nahay Somaliland af kale ha soo siiso yaa markuu af kale ku heesa anagaaba dhaheynaba naga imaaninba Soomaali hanaga imaanin anagaaba dhaheyno laakiin afkiisa hooyo ku hadlay oo ku heesay oo ku gabyay oo ku maaragtay wixii wacdi gelin ku sheegay way loo dhahayaa meel hebel ma tagi kartidii waa lagu xiraa war maxaydii la muuqataa dadii oo ma qaldanahay mise waa saxana haddaan qaldanahay qabta iina share gareey sidunkiinaan qof Facebook yaa taas waa xaq weeyaan share please yaa haddaan qaldanahay qabta yaa hadday rabto Faarax Murtiile inuusan Soomaaliya geesna ka tagin luuqad gooniyaha soo siiyaan ilaa Faarax Murtiile af Soomaali buu ku hadlayaa af Soomaali buu ku gabiyaa af Soomaali buu ma aragtay ku kaftamaya af Soomaali buu ma aragtay miidiyaha kula jira ku shaacireynaya may fahantay waa nin Soomaaliya oo fanaan oo meel kasta magaaladu taga laga jecel yahay laga soo dhaweynaa maxaa u diiday yaa ka qaada xornimada war meesha rabtid tagniyo war meesha rabtid tag Soomaali laga ma xigo haddana gorow markaa ka tagtay xamar ka deg wallahi xamar ka deg baydhaba siimar Kismaayo siimar yaa kaale waddankaagi waa aniga taas ku dhiilaa booto Somaliland wallahi xargahay soo furad way ka soo dartay not good like that only one things looga celin karaa Faarax Murtiile Soomaali meeshu ka rabo hadduu af Soomaali ku hadleen waa laga celin karaa hadduu af Soomaali ku heeseen waa laga celin karaa hadduu af Soomaali ku gabyeen waa laga celin karaa okay Somaliland luuqad kale ha u soo dhiibato Faarax Murtiile ha soo siiso haddii ay rabaan inuusan taginin meel kale luuqad kale ilaa afka Soomaaligu ku hadlaa Soomaaligu gees ka tagay dadna ma dhicin dadna ma dilin waani Soomaali dad walaalihiisu u tagay maxaa ku jabantaas why is a big deal waxaas qalad waay mid kale aniga waxaan dhihi lahaa fanaaniinta in laga bixiyo macnaha
heblow meel ma tegi kartid iyo intuu ka degay iyo waxaasay taceeb waa Somaliland waxaas oo ku ciibeysan yihiin Yurub Kenya ku xirteen wariyihii muxuu ahaa magaciisa qaaniyo waa ogeydeen war waxaas camal qaadinina oo caburinina hadaa rabtaan inaad dawlad noqotaan oo dawladnimada in ka daacata war qofku waa xor ilaahay maalintu intuu hooyadiisii aabihiis ka dhaliyay ya uu qaan gaari Soomaalina uu ka dhigay ayuu qofku ma aragtay meeshuu rabo tagi karaa marka qof bili aadan soo aniga ugu dhigi karaa meel heblo ma tagi kartid meel heblo ma tagi kartid soo ugu dhigi karaa mid kale Faarax Murtiile runa daartii nin Ingiriis waa yaa Ingiriisku degan yahay ma fahanteen aniga mana qabo in meel laga xigo qof Soomaaliya in meel laga xigo especially fanaaniinta iyo wariyaasha iyo dadkaas laguma saqajaamo ninkan fanaan waaye af Soomaaliya ku hiisa af Soomaaliya ku gabya af Soomaaliya wuxuu rabo ku sheega af Soomaaliya ku shaacireeya ya Somaliland luuqada u soo gada Faarax xasiiso markaas way dhihi kartaa wareey luuqada af Soomaaliya because Soomaaliya ku hadlaa Soomaaliya laga ma xigo waradaan been sheegay qabta dayo haddaan been sheegay qabta waxaas camal ma fiicno Faarax waxaan kugu waalin lahaa nin Soomaaliya tahay nin kaftan badan tahay nin mataqaana dadkiisa iyo dalkiisa jecel tahay meel alle meesha rabtid ka tag Soomaaliya cid ka xigta mala ya hadda garow markaa ka tagtid xamar ka dib baydhabo tag Kismaayo tag jilib tag jamaama meel alle meesha rabtid gaalkacay siimar dhuusa mareeb siimar ya wadankaaga waa yaa ku diiday ya xaga ka wareego ceelbuur mar hobyo tag inta aad garow war meesha rabtid tagniyo nin Soomaaliya ta umadaadana waa ku jeceshaa ya I don't think so Somaliland in laga celin karo ama lagu xiri karo ya in laga celin karo lagu xiri karano oo ma malaynaayo dadka xanaaqsan oo xanaaq soo tuurayaan hool meesha waxaan soo galay inaan wax dhaho waan dhahaya hadaarta ay soo qor hadaarta xanaaq soo qor hawlku taalo waa laakiin runta sheegaya aniga waxaan dhihi lahaa Faarax Murtiile waa laga gardaran yahay khalada loogu dhagan yahay hal iska daayo hadaad rabtiin Somaliland Faarax Murtiile inuu Soomaaliya Hargeysa iyo Burco meelaan ahayn uusan taginin luuqad kale u soo gada inta uu Faarax Murtiile Soomaali ku hadlay inta uu ku gabyay inta uu ku heesay Soomaaliya xor meel alla meesha ka tagay waana la soo dhaweynayaa meeshu tagana waa laga soo dhaweynayaa please waxaan dhihi lahaa xamar lagu casumo gaalkacyaha lagu casumo soo dhaweeya loo istaago waa nin Soomaaliya why kuwa kaarayaasha iyo magaciisa iyo hubka wataba waaba joogaan asaga waaba hubna ma wata kaligiis waa fanaane maxaa laga rabaa laga burbursanaya ya madoobe oo gobol intuu ka soo tago gobol kale hub u soo qaatay ma laga hadlo ma runta la soo sheego ya axmedoobe meeshuu tagay askar iyo hub uu soo kaxaysta maxaarama joogta iyo ku baabi'ina hubka taas maxaa looga hadlaa Faarax Murtiile miskiin oo mataqaana fanaan oo mataqaana iska kaftamaaya iska shaacireyna wax Somaliland ba tagto waa lagu xiraya waxaas maxaa waa intee laga ciyaaraa waxaas Somaliland luuqad kala soo gadato ka bacdi hasiisa Faarax Murtiile ha ku control laakiin aniga waxaan aaminsanahay Faarax Murtiile in uu u dhaxeeyo Soomaali oo dhan inuu yahay nin fanaan inuu yahay nin gabyaa inuu yahay nin shaacireeyo comedian ya af Soomaali buu intaas ku sheegaa Ingiriis kuma sheega Carabi kuma sheega Talyaani kuma sheego ya afkiisa hooyo ku sheegaa Soomaali geesku ka tagana waa wadankiisa mi fahanteen igu raacsanuna igu raac qofkii igu diidanuna igu diid anigu waxaan aaminsanahay in laga gardaran yahay anigu waxaan aaminsanahay inay xaq darro tahay anigu waxaan aaminsanahay qofka damiirkiisa iyo Soomaalinimadiisa iyo xorriyadiisa in wax loo dhimaayo ma fahanteen mana fiicno saas camal ma fiicno dadka lama caburiyo see lagu caburina qofkii meel taga waa la xiraa jeelka la gelina ya oo Somaliland qofkii dhoofay garow taga ku Hargeysa emailada joogo garow waxay ka qaataan baasaboorka xamar waa ku fogta ya asaga baasaboor Ingiriis uu wataaba haday kaaga macdahay ya why Faarax Murtiile why
واي ميسو فنان أحس والله عيبوا بقى وحيالاس عمل مفيعنا نينكا هدو فنان يهي سومالي ودن ودحيا دقال كان daradan way iska baabi'ileed dadka waxa sameynaya ayaa dhibaatada Soomaali u geysanaya dadka waxaas dadka kala jarjaraya ee ood kacay waa dhibaatada ka socota Soomaali waa hal Soomaali waa isku luuqad Soomaali waa walaalo Soomaali waa isku diin Soomaali waa isku ignaay af Soomaaliyan ku wada hadalnaa ma fahamtay dadkan ood kacay hana laga daayo فارح مفتيلي هب موتو وانين فنانة كلي سو باحي او قرو واتغي يا أديركي أحمد إسلام هب يا أسكر الدنيا وقات ديارات كو قاضي يا داد ما آمنا يا حد الصومالي لبدا سنين يا صومالي سن إيش يا قبل أدينك إذا السؤالي والله يا waan soo waalanoona intaan waalidiina waxa waali waa ka badatay ma aragtaa ugu soo dardaroona aad iyo aad ayaan ugu soo dareynaa laakiin waxaan idin ka codsanayaa umadiinaan Soomaaliyeed in aad fanaaniinta iyo wariyaasha iyo mataqaanaa waa ma aragtay in la iska daayo oo ma aragtay ay meeshay rabaan maraan waa dadkii dadku wax u sheegi lahaa oo aqal celin lahaa dhalinyarada dhageysato wax walba qofka qalad haduu wado qofka dagaal haduu wado qofka haduu dhibaato wado yes igama imaan kartid waa dhigi kartaa magaaladeyda ama mataqaanaa kuma soo noqon kartid magaalada ka tagtay yes laakiin qof Soomaali af Soomaali ku hadlay af Soomaali ku heesay dadkiisa dhinacu raba ka galay yaa waxaas ma fiicna waxaas kulli ani kuma raacsani kulli ani kuma raacsani qofkii ku raacsan yes Soomaali waa wada hal isku mid ah asloongu af Soomaali ku hadlay oo ku gabyay oo ku heesay oo ku shaacirayna waa nin Soomaali waa nin fanaan afkiisu isticmaala afkana waa naga wada dhaxeeya may fahanteen هدا ربتين صبيحي ننكا لوقت كلا ها usoo gado haduu rabo inuu xiro luuqad kale hana u sii sheego wariyaa luuqadan ku siiyay luuqadan iska leedahay Soomaaliland ku hadal luuqad kale ha ku hadlinde luuqad gooni ee samaysto wadan gooniba waartiin ina samaystiin luuqad gooni ee samaysto waay af Soomaali ugu hadlay waay hada wadan kale tahay waay baasaboorka u isticmaalay ya واي أوجد بيسا مرنا حمر وتجيسا مرنا هرجيس وتجيسا شبلك ما يسنبع لكن دتك أو ببنت كرادية إرساقدة يلعقتها أو صومالي كل الدلا أو إسكودرة أو كلا جدا أيوم باوحة استعمال لكن شبلك ويستعلين سلآدان ويسكدح مشتر مال بها ويسكدح مشتران ما يفهمتين ما أنا كلا جري كرتان قف وحكي علين كرم يجرو بوطة ماشي كويسان بوطة داسنا ماشي قيسي هلاقا اللي يحد فارح متيلي فارح ماشي عرفت تك ميل اللي ماشي عرفت سومالي كتك توارول كاقي هوي أدا اسكالي دول كاقي وناقيسا أدوكو كويالا هدو حيا أدو كويالا هدو في عيا أدو كويالا وماشي أكل على أبا كل شيء أبيس كل شيء هويدا كأب كأو أكل على ماشي هادي واي قف حيجنا مال الله ما شارت قال كعيه هذا السيمر لو سمريب كحجي ساس أسيود بلدوينتك بولبرت السيمر جوهر كسي حجي إلا بلعت حمر كجش الحمر ساس أقبح لقيه هذا كاتست حتى بابور راعنا داربت حتى بشكلتك حيس أقوى بيان لقول شيء وضعهم كلها أيوة كحرة يدت كان كلها أيوة كحرة عذاب كباور بدن بقى يعني بين لقول شيء يا بيان لغو شيغن بشكوليتكم مرة دارت بابورنا هكورن دياردنا هكورن وان لغو سبعنا وان لغو سودوينا نين سوماليا تا سوماليا ودنان udhaxaysa kulli aniga Soomaalnimo ku fiirsada Soomaalnimo aniga fankeyga u tahay Soomaalnimo u jeclahay fankaaga Soomaalnimo u dhageystaa uma dhageysto Somaliland ahaan uma dhageysto oo Puntland ahaan uma dhageysto oo Jubaland ahaan uma dhageysto oo meel magac uma dhageysto nin Soomaali ina taan ku dhageysta aan luuqadiisana fahmaayo waana ku raaxaysta waana ku shaaciraysta waana ku mahadsantahay maxaa ka galay Faarax
وصومالان وانا لا حد وانا لا حديا ده حدي ما انا كو ديدني قردردا كو خيري سيدان لا يابنahay jeelka ayuu liinta ka cabay jeelkiina liinba ma talbeed maxaa u sheegay jeelkiina cuntaba ma lagu cunabe liinta ku cabiya kulaha Somaliland liin xamra looga qaaday oo waxa dhaadin liin xaali dhaadin anaga liin caadi aan dhahnaay beenta sanaga noo sheegaysan amba filfila dhaadaano amba lafa dhahdaane ya liinba ma tal Somaliland been ma la isku sheega brother hey take it easy guys ترتيبكينا يا صومالي اسكو مid waay ما مقليسين يا فارح مرتيلا لي وحوال حرايا قرو محو تغي يا فارح مرتيلا فنانين تاو وجعلها waa ka helo oo asaga iyo faadimiina iyo barafir bay igu daayo inta maxay shaar yar baan soo xirto taaluug yar aan soo xirto alaabtaas jeclahay illa iga taabta maraba faarax murtiile waa xiraynaa bay kuliyay see loo xiraaya wadankiisu tagay mudad buu dhacay faarax no faarax waa Soomaali pure Soomaali waa meeshuu rabo tagi karaa عم بحال قفكاس داي محوها على كل حال صاحبي يا ما عن اسمينا اركنسيتين هرت حالدينا كورم ما يقول راحسنتين ارنتاس انت يقول راحسني فرتتاك فارح انه ياني Soomaaliya يا meeshuu raban uu tagay fanaan la jecel yahay uu yahay ya meel kastana looga baahan yahay ma igu raacsantiin de intii igu raacsanay fartataag intii kaloyna ya saas والله حيرة يو واديني هلو عمر الشيخ ساتة السلام عليكم على كل حال وحسوا خلد وين إن فارحنا ودنك لقى محيقة ماشي وربو كمر كرا عدي عمر وكا قاضي باي أنا واكو السلام بقولكي بقول سلام الله كان أو فك سوق راي محيط سكرية نبضي محاوي فك تاني يوحنا السوق ريس باي سكرية عائلة لقى مقارو هيلي سالو جرا ميشان فارح نتيل نكا ويلين إنه اسكبح عايدة next aan soo galo hadda waxa waaye Soomaalnimo u taaganahay qofka meesha Ingiriis soo qoraa ordo igu dhaafa how are you buleen ka arkay I'm fine عليكم السلام قف كانوا كلهم السلام أنا فارح مرتيلي وحكمت يا فنانين أنا جعلها فنكوذا رنت مركيل الربو وأنا متقنا فنان قفك مركويها أما مركو قبيا أما وريها أما ضد ميزيها يقانين لو مسق جامو علو موارت وري حرجنا علو مال ده يا يرجعينا اللي يجي سوري Somaliland الكي Somaliland اللي يجي سوري ويا بعني هاد Somal سيدي لو سو دوين waa la ogaa Soomaali markay tagtay Xamse Faarax waa ku salaamay وحرك كرمال فارح متيل أصاب Somaliland حكومة أمو بنينك لها يواكو حرايا أمو ضدك لها يواكو حرا وكباور بدنيا هرت ما بتقانين أم لينا فارح بتقانين هرت شاكو كل جن جروا ما تام باسبورك وصودونه تام فارح مفتيل باسبورك يسوبه وطابة هذا فارح متيلي حريسين
ما ku xirtiin baasaboorkoo wato saaxiibayaal Somaliland haday rabto fanaaniinta inaysan tagin mataqaanaa Soomaaliya oo Somaliland u dhalatay luuqad kale ha u soo gadaan sababtoo af Soomaali ku heesaya qofkii af Soomaali ku gabyaya af Soomaali wax kasta ku sheegaya ma fahanti marka why af Soomaali ugu hadlaysin why ala kulli xaal wax shaqeynaa ma aqliga shaqeeyo عقلي هي هاشقيو فارح نقتيلو في صومالي وكهلا كهيسا كقبيا كشاعريا صوماليا داتكتن والله حرا مش قيسو ما مشي ذن وان كوهيستا والله عبد الفتاح هي ثانك يو هي يمرخات فرد فارح مركز ايشيغا عمر أبتدون سلام سر عمر أبتدون أدبكو سلامي ما قلدين هاي فارح مرتيلة إنو تجروي يمشوا ربع الصومالي كتبه مسوي سحني هاي سي إذا لا تهاي أنا جو إلى سحنيها بقول كي بقول وحن ليه لها صومالي مل لميش عرفت تكتب برجع عرفت تقل الباب كادر تقراعه magaalada rabtid tag ya ku dhaxlugay warunta Soomaaliland cunsurinimadaas ka dhaafto cunsurinimo horta qofna waxba ugama qaadayeen ciday wax uga qaadayeen malahan Soomaaliland dadka shibilka abaa la dhibaya ma ahane Somaliland Soomaaliya ma nabcana weyn yihiin ma fahanti dadka masaakiinta oo shibilka ayaa la dhibayaayo odayaar warsan rabaan inay lacag ku cunaan maalin walba Soomaaliya tagaan xamar Hargeysa Baydhabo meel kasta tagaan way isdhaxyaacaan waa la is aroosaa waa la iska dhex maaragtay business la iska sameeyaa odayaashan gobolada googoostay waa dhibaatada dhan ma fahanti ani ma aaminsanay dadweynaha inay yihiin maanta ani ma aaminsanay Somaliland hadaa tago qof ila hadli karo inuu jiro qof dhigi kara ka bax inuu jiro ma u maleynaayo waa wadankeyga hooyo wadankeyga aabe kan ku dhiman lahaa kii liigu aasi lahaa waay ma qof iga bixi ka bixi dhigi kara ma jirto qof igu xiri kara ma jirto meel alla meeshaan rabo waxaan aaminsanahay Soomaaliya inaan ka mari karo marka waxa waay mucjiso waa qofkii af Soomaali ku hadlaaya aallee meel hebla hadaa tagtid waa lagu xiraaya see magaci waa wataan Somaliland land محل ده دولك Somali waa yeah did I have another name maya macnaha magaci dhanayba noo wadaanba magaci dhan bay noo wadaan boqorka dheer reer dhuxul hooyada baa dhila war ninkaas weyn arka oo dhila idhahay dhila aday ku dhashay dhila dhashay baaster dhalay buka waa bugtaa baxsiinay aad nacala kii ku dhalo biraha tumaay ku yaale boon dhale anaga dhila noo soo qoraysaa kalbiyo dhiladii ku dhashaa dhile xalaal maba ku dhalan ba xalaaladaa ku dhalatay maba ii soo qori lahayn dhilo because mana aaday wasin mana itaqaanid mana aaday wasin mana itaqaanid so هذا حرام كدلن أو حلال أكو دلت قف إسلامي ده هالك كلا إلا أما سوق قرتين إلا أذيك دش إلا دش أذيك دش مع الأيد يا إلا أذيك هو إذا بس كداف في اللي كان دلت نعس دلت nin weyn waa illa u soo qoraya afka ku qurun allan kaabri dixri kaagal adoo nool dixri afka kaagal wuba kaagalayaa ala kulli xaal aytintii bilaabatay ma sii wadaay eegas eegu dhalan uma baxay ku dhahay walaalayaal Soomaaliyaanahay lamana kala xiga Soomaali fanaanka meeshuu rabo mari karaa meeshuu rabo ka heesi karaa meeshuu rabo tagi karaa af Soomaaliya ku heesaya af luqad kale
faarax murtiile nin intaan ka arkay degan oo mataqaanaa kaftamo oo mataqaanaa dadka dhan jecel yihiin waaye ninka fanaankana lama kala xigo yees qabiil wuu ka dhashay laakiin fanaanka markuu soomaali u dhaxeeyo waxaa aaminsanahay qabiil inuusan lahayn maanta haddii faarax murtiile lasoo weydiiyo yaa qabiilkiisa wuxuu ku leeyahay reer hebel waa ahay laakiin ma u malaynaa inuu ku dhaqmaayo because soomaali oo dhan ayuu u dhaxeeyaa qofka markuu ummadoo dhan u dhaxeeyana in farta lagu fiiqfiiqo ama la xagto waa laga fiican yahay walaa qofkii caytamaya isaga u taala raggii baryahanba gabdhaha waa ku waasheeno inay caayaan inay magaciisii or ayaga u taala laakiin caytin aniga waxba ma la iiga qaadaa kii caay waa iska cayna ani kaan qabto oo caytamaya waa ani meesha inaan wax ammaano uma soo gelin meesha inaan wax ammaano uma soo gelinin inaan ka buraanburo uma soo gelinin yaa kii ugu tufo waa ku tufaaya muxuu yiri afkayagu qalo ma tihid waa mid qura waa run luuqadeena waa mid qura kulligeen waxaan aaminsanahay diin hal diina aaminsanahay waa isla dhalanay waa isguursanaa maanta qof kaligiis qabiil u istaagi kara ma jirto qof kasta waxa waaye qabiil baa meel ka soo gala inta isaaqa ka galay inta saan inta kan inta roosnaa marka waxaan caqaadaan iyo edabdaradan la abuuraay hana laga daayo iyo afxumada intaa wadankii naga jijabiseen hana kala tukoorinina edabdaraha noogu darinina fanaan kasta meeshuu rabuu aadi karaa xor waaye dadkii wadanka mataqaanaa xoreyn lahaa waaye dadkii marka dadka wuxuu sheegi lahaa waaye dadkii ciyaalkii dhalinyaradu dhageysan lahaayeen waaye yaa odayaashan sumaysan ee irbada lagu soo wada duray ee wada gagabaaya warkooda ha maqlinina hadday wax hagaajinayaan maalinba meel kuma shireen oo intaasoo milyan kuma aysan cuneen yaa dadka masaakiinta oo dhamaanaya siin lahayn lacagta u danayn lahaayeen maalinba meel la aada diyaarada la qaadana baba waxa siito wax shaqeynaya maahan aqliga shaqeey marka dadka fanaaniinta iyo dadweynaha Soomaaliyeed yaan la kala dhixgelin edabdarada la iska joojiyo yaa mataqaanaa xamar tagi ama magaalo kale tagi in la dhahayo wariyaa xamar maxaa u imaatay wariyaa maxaa gaalkacyo u imaatay waxa siito Somaliland baanu ka maqalnaa waana khalad ay ku qaldan yihiin taas bal at least dadka fanaaniinta oo Soomaalida oo dhan u dhaxeeya ha iska daayaan qofkan igu haya yaaska yare xabad sigaara sigaarka gadal lacag uu joogaa yaaska sigaar aniga ceeb ilama waa cabaa kaamana qarsado wax kale oo sheegtaa weeyde ala kulli xal sheekadan faarax murtiile ku socotaa faarax murtiile wadankaaga waa yaan lagu booteenin ninka ku dhahay waa ku xiraa aqaana wax ku xiri karana male noolow yaa Soomaali meesha aragtidna ka tag biskuleetin ana ku soo diraaya oo degdeg waxaa la rabaa garow inaa biskuleeti uga soo baxid raas casar iyo raas komboni inaa ku tagtid biskuleeti baawur maaha diyaarad maaha dad heeganana caano iyo biyo ka daba wadaan yaa waxaas lagugu booteynay Soomaaliland bentila I don't believe that shit anyway على كل حال عايتنتي يا صوبت بدتي كو دهيا من إيشير قرينو يسين لبد دهيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارح فيفا فارح مرتيلة فيفا باي فنانين تالا دافو